بسم الله الرحمن الرحيم waxaanu joognaa Afisiyoni Center waxa socda shirkii golaha wada tashiga qaranka oo ka socda xarunta ciidanka cirka Afisiyoni saaka waa maanta waa maalin khamiisa waxa shirku galay maalintii afraad oo sida la wada socotaan shirku wuxuu soo bilaabmay Isniin talaadana uu socday arbaco shalahaydna uu socday maanta oo khamiis ahaydna shirkii madaxda wada tashiga qaranka uu socda shirka waxa gudoominaya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo waxa qayb ka ah وشركة فريق رئيس الوزراء جمهورية فدرالك الصومالية محمد حسين روبلة مدحوينها كونفور قلبات عبد العزيز لفتقرين مدحوينها قلمدوك أحمد عبد كارية قرقور مدحوينها هرشابيلة علي الجود لاوي حسين قدوميها قبل كبنادر عمر محمد عمر فينش وحكلوت شوقة جددي فرصمدا أرمها السياسة وحكلوت شوقة جددي أمنية كشقين أمنية دور الشذا شركة واحد شوقة بهدي ورباهنتا اللهم كلام مقنع شركة سيدي لود السعودين ولي وحان كسو قيب قلين مدحوينياشا بوتلان سعد عبد الله دني يمدحوينها جبلان أحمد محمد السلام أحمد مدوبي شركو ما أنت وحو قالي مالتي أفراد أجنديه السنة وحوها شر البابد وحرينيين وأي مدحضو كقوضة حلين sababta ay uga soo qayb gali waayeen labada madaxweyne kale shirka maalintii afraad halkan ka socda ajendaha shirku maanta wuxuu ahaa arintaas aad bay madaxdu arinta u la fagureen dhinacyo badan uga eegeen markii la isla rogrogay aad loo qiimeeyay xaaladda si shirku uu u soo gabagaboobo oo natiijadiisu loo gaaro waxa laga maarmaan noqotay in laga wada hadlo sababaha ay labada madaxweyne ay u maqan yihiin shirkan oo saaka waqti hore bilaabmay waliba waxa cajiib ahayd madaxweynuhu inuu ugu soo horeeyay saaka oo 7 subaxnimo u shirka yimi taasoo muujinaysa sida ay uga go'an tahay madaxda dawladda federaalka in shirkani naajaxo guuleysto iyadoo loo hirgelinayo heshiiskii 17 Sebtembar iyo kii ka dambeeyay 16 Febraayo si doorasho loo aado dalkan ay uga dhacdo doorasho hufan oo nabada oo xasiloon shirka kadib hadda oo waqtiga aynu marayna ay tahay 4 galabnimo waxa la isla gartay inay muhiim tahay markii la helay maxsuulka caqabadaha ay u iman waayeen labada madaxweynaha federaalka Soomaaliya wuxuu go'aamiyay in ergo uu diro labada madaxweyne ergadaas oo ah madaxda maamul goboleedyada madaxweynuhu wuxuu u diray 3 madaxweyne oo uu hogaaminayo 3 madaxweyne oo ah Ali Guudlaawe أحمد عبد كاري قرقور يا عبد العزيز لفتقرين سدحنا مدحوينه waxa ergahan loogu diray inay la soo hadlaan oo ay la soo kulmaan oo ay hoos u soo ogaadaan sababaha ay shirka 4 maalmood soconaya ay uga maqan yihiin si loo hirgeliyo hanaankii doorashada lagu heshiiyay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ay tawfiiq ku soo dhamaato oo ay ka soo qayb galaan shirka si dalkani uu doorasho u qabto shacabka Soomaaliyeed waxaan xukuumad ahaan rabnaa in ay nala wadaagaan oo nala qaataan samirka iyo dulqaadka samirku waa sadka siyaasiga samirku waa waxa lagu guuleysto dulqaadku waa waxa keena nabadda iyo xasiloonida madaxweynaha ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dawladaha xubnaha ka dawladda federaalka iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir waxay muujiyeen adkaysi dulqaad iyo samir intii shirku socday shacabka Soomaaliyeedna waxaan ka rabnaa sidaas oo kale in iyaguna dulqaad deganaan iyo samir muujiyaan oo aanay oranin maxaa intaas oo dhan loo sugayaa hore loogu socon waayay waxaan rabnaa doorasho fiican oo qurux badan oo nabada oo xasiloon inay noo qabsanto mar rabno in aynu ka tagno hal state mar rabno inaynu ka tagno hal muwaadin oo aynu qancin karno waxa socotay isqancintii sidaa darteed waxay noo rajaynayaa dhammaanteen guul iyo horumar aad iyo aad baa mahadsantihiin shirkuna uu sii socon doonaa sidii horeba u socday ilaa iyo inta aynu ka soo saarayno natiijada rasmiga ah in lagu ayido lagu hirgeliyo heshiiskii 17 Sebtembar ee labada gol ansixiyeen iyo heshiiskii ka dambeeyay Baydhabo ee guddida farsamada aad iyo aad baa mahadsantihiin